booliska Mareykanka ayaa magaalada Florida ku qabtay nin looga shakiyay inay la tagday cunsuriyad nacaybka dadka Sookalotiga ah iyo kuwa Islaamka kadib markuu cod fariin ah u diray xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga eedeysanaha oo 49 sano jir ah waxa lagu magacaabaa Johan Cleese kaasoo lagu eedeeyay inuu cod fariin ah oo hanjabaad ah uu u diray Ilhan Cumar iyo Rashida Tlaib oo ah haweenka muslimiinka ah oo ku jira xisbiga dimuqraadiga. ninkan ayaa sidoo kale fariimo xambaarsan nacayb iyo hanjabaad dil ah u diray Eric Swalwell oo ah nin doonaya in xisbiga dimuqraadiga uu ku metelo doorashooyinka la filayo sanada 2020 ee madaxtinimada dalka Mareykanka iyo Cory Booker oo ah senator madow ah oo Amerikaan ah. eedeysanahani ayaa lagu waramayaa inuu fariintiisa cod ah ku muujiyay nacaybka uu u qabo Ilhan Cumar waxaana uu sidoo kale afka ku balaariyay sida uu u arko sareynta dadka cadaanka ah. ninkan ayaa fariintiisa ku difaacay madaxweyne Trump waxaana uga digay siyaasiyiinta inay joojiyaan mucaaradnimada ay ku hayaan madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump. مصطفى عبدي قابل مصطفى كرامة TV كقلم مدوب مقالة مقدشو.